Bienvenue dans l'histoire Le Corbeau et le Renard. Les fables sont un moyen idéal d'apprendre de belles leçons tout en s'amusant. Ce livre bilingue, français-somali, est conçu pour aider les enfants à apprendre la langue de façon ludique. En écoutant l'audio tout en feuilletant la version papier, votre enfant profite des magnifiques illustrations tout en renforçant son apprentissage. Pour commander le livre, scannez le code QR ou visitez somaliforkids.com. Si l'histoire vous plaît, merci de nous laisser un avis sur Amazon. Vos commentaires aident notre organisation à continuer d'exister et à créer de nouvelles histoires. Place à l'histoire. Kusoo dhawaada sheekada Dacawo iyo Tuke. Sheekooyinka xikmadda leh waa hab fantastic ah oo lagu barto casharo waaweyn iyada oo lagu madadaalanayo. Buuggan labada luqadood ku qoran Faransiis iyo Soomaali waxaa loogu talagalay inuu carruurta ka caawiyo barashada luqadda hab ciyaar iyo farxad leh. Dhegaysiga codka iyada oo lala socdo buugga daabacan ee gacanta, ilmahaagu wuxuu ku raaxaysan doonaa sawirrada quruxda badan taas oo sii xoojinaysa barashadiisa. Si aad buugga u dalbato, iskaan ku samee koodhka qar ama booqo somaliforkids.com. Haddii ay sheekadu ku hesho, fadlan faallo ama dib u eegis nagaga reeb Amazon. Ra'yigaagu waa furaha sii jiritaanka ururkayaga wuxuuna na caawiyaa inaan sii samayno sheekooyin cusub oo carruurtiina ah. Haddaba aan u bilowno sheekadii. Il était une fois un corbeau affamé qui cherchait de la nourriture. Il trouva un morceau de fromage par terre. Beri waxaa jiray tuke gaajoonaya oo wax u cuno raadinaya. Wuxuu helay farmaajo dhulka taal. Quelle chance j'ai, s'écria-t-il. Il le prit rapidement dans son bec et s'envola sur la branche d'un grand arbre pour le manger. Nasiibkayga ayuu yidhi. Dhaqso intuu afka ugu ritay ayuu duulay oo laan ku taal geed dheer ku fadhiistay. Si u farmaajada u cuno. Un renard qui avait affreusement faim lui aussi passa près de l'arbre. Il vit le corbeau avec le fromage. Dacawo qudheedu gaajoonaysa ayaa soo agmartay geedka. Tukihii oo farmaajo haysta ayay aragtay. Le renard était rusé. Il se demandait comment prendre le fromage au corbeau et le manger lui-même. Dacawadu waxay ahayd khayaano. Waxay ka fikirtay siday uga qaado tukaha oo u cunto keligeed farmajada. Le renard s'approcha sous l'arbre. Bonjour corbeau, dit-il en commençant à le flatter. Tu es bien beau aujourd'hui. Tes plumes noires sont si brillantes. Dacawadii geedkii ayay hoos timi. Subax wanaagsan tukihii ayay ammaantiisi bilowday. Maanta aad baad u qurux badan tahay. Baalashaada madow ayaa dhalaalaya. Si ta voix est à la hauteur de ta beauté, je dirais qu'il n'y a pas d'animal plus magnifique que toi. Tu serais le roi des oiseaux, mais les autres animaux ont dit que ta voix n'était pas belle, ajouta le renard. Haddii codkaagu la mid yahay quruxdaada waxaan odhan lahaa xayawaan ka qurux badan ma jiro tukaha. Waxaad ahaan lahay boqorkii shimbiraha ayay tidhi dacawadii. Peut-être ne disent-ils pas la vérité. Veux-tu chanter pour moi afin que je puisse entendre ta belle voix, demanda le renard. Le corbeau en devint tout orgueilleux. Laakiin xayawaanada kale waxay yidhaheen codkaagu ma fiicna. Malaha runtood maaha. Tukihii ayaa hanweynaday. Dacawadii waxay ku tidhi. Maad ii heesi bal si aan u maqlo codkaaga quruxda badan. Le corbeau crut le renard. Il ouvrit le bec pour chanter et oublia le fromage. Le fromage tomba par terre. Le renard se jeta dessus et l'attrapa. Tukihii ammaantii dacawada ayuu run mooday. Wuxuu is yidhi hees. Inuu wax afka ku haysto ayuu ilaaway. Farmaajadii dhulkay ku dhacday. Dacawadii ayaa ku booday oo qaadatay. Le renard eut ce qu'il voulait, et le corbeau comprit qu'il s'était fait piéger. Dacawadii intay doonaysay ayay heshay. Tukihiina wuxuu ogaaday in la khiyaameeyey.
Pour ton fromage, je vais te donner un conseil, dit le renard au corbeau. Si quelqu'un te flatte, ne le crois pas toujours. Demande-toi d'abord s'il est honnête. Dacawadii waxay ku tidhi. Farmaajadaadii waxaan kuugu beddelayaa la talo. Qof haddii uu ku ammaano mar walba run ha moodin. Ka fikir intaanad aaminin inuu qof daacad ah yahay. Nous espérons que vous et votre enfant avez aimé cette histoire. Pour profiter pleinement de cette aventure, vous pouvez acheter la version imprimée du livre. Avoir le livre physique entre les mains vous permet de lire avec votre enfant et d'admirer les images ensemble. À la fin du livre, vous trouverez des jeux et des questions de compréhension amusants, en somali et en français. Ces activités sont conçues pour aider votre enfant à apprendre et à pratiquer les deux langues tout en s'amusant. Vous pouvez trouver nos livres sur somali4kids.com ou directement sur Amazon. Enfin, merci de prendre un moment pour nous laisser un avis. Les commentaires sont essentiels à la survie de notre organisation et nous permettent de continuer notre travail. Vous pouvez laisser votre avis en scannant le code QR présent dans le livre ou en nous recherchant sur Amazon. Waxaan rajaynaynaa in aad intaad sheekadan dhegaysanayseen aad adiga iyo ilmahuba ku raaxaysateen. Si aad safarkan uga faa'iidaysataan, waxaad ka iibsan kartaan buugga oo daabacan. Haysashada buugga gacanta ee la taaban karo waxay kuu suuragelinaysaa in aad ilmahaaga wax la akhrido oo aad sawirrada wadajir u eegtaan. Dhammaadka buugga waxaad ku arki doontaan su'aalo fahanka ku saabsan iyo ciyaaro madadaalo leh oo ku qoran luqadaha Soomaaliga iyo Faransiiska. Howlahan waxaa loogu talagalay inay ilmahaaga ka caawiyaan barashada iyo ku sheekaysiga labada luqadoodba. Buugaagtiyada waxaad ka heli kartaa somali4kids.com ama adiga oo nagu raadiya Amazon. Ugu dambayntii, fadlan tixgeli in aad faallo nagaga reebto. Faallooyinka iyo rayigiinnu waa kuwo muhiim u ah sii jiritaanka ururkayaga, waxayna naga caawiyaan inaan sii wadno hawshayada. Waxaad faallada ama dib u eegista ku reebi kartaa adiga oo iskaan ku sameeya koodhka qar ee buugga ku jira ama adiga oo nagu raadiya Amazon.